waxaa u muuqday oo u soo baxay oo bannaanka ku soo dhacay sirtii ka qarsoonayd. wuxuu ogaaday xaaskiisu waxay u haysay iyo intay la ekaayeen oo qiimahay ku fadhiyeen ayuu fahmay. nin injineer ah oo injineer warshadeed ah, xaaskiisii baa dhimatay, waxayna oga tagtay 3 carruur ah oo kan ugu yar uu jiro 2 sano da'diisu ay tahay. kadib wuxuu isku dayey inuu carruurtaa u raadiyo haweenay u tarbiyaysa oo wanaagsan. ayuu isku dayey inuu guursado, hase yeeshee waa u suurtageli weyday. albaabo badan oo garaacay, waxba uguma suurtagelin. gabadhu u bandhiga guur markuu u sheego xaaladdiisa, way ku diiddaa guurkiisaas iyadoo ka cabsanaysa mas-uuliyaddan weyn iyo carruur aysa dhalin inay tarbiyayso. dhibaatada ay leedahay ayadoo fahansan ayay gabar walba diidday inay ninkaa guursato, mas-uuliyaddaas weyn iyadoo ka cabsanaysa ee sugaysa. sababtoo ah asaga laftirkiisu ma ahan mid guriga jooga inta badan bisha, oo hawl iyo shaqo ayuu galaa injineernimo ah. markuu ku fashilmay in badan oo gabdhaha guurka u soo bandhigtay, fasax buu ka qaatay shaqadiisii maalintii dambe. wuxuuna niyeystay inuu raadiyo shaqaale caadiya oo mushaar ku siiyo carruurta tarbiyadooda. gabar shaqaale ah oo carruurtiisa la noolaata oo u tarbiyaysa ayuu raadiyey. kadib shuruudo ayuu soo qortay oo gabadha u shaqaynaysa ama haweenayda carruurtiisa u tarbiyaynaysa. shuruudahan waa in laga helaa. 1 waa inay aqoon leedahay. waa midda labaadeh 40 sano waa inaysa ka yarayn. sifooyin badan iyo tilmaamo badan oo yeelanaysa haweenayda u shaqaynaysa ayuu soo degsaday. kadib wuxuu helay haweenay shuruudahaasi ka soo baxday. wuxuu helay haweenay aqoon leh oo weliba jaamacad ka baxday, oo wax badan oo aqoon durugsan u leh tarbiyada iyo howlaha guriga iyo maaragtay arrimaha ku tacalluqa. waxayna tidhi shaqadan waa ka soo bixi karaa, waana geli karaa, waana u baahanahay. mushaarkaygana waa inuusan ka yaraan $700 bishii. 3 carruur anaa kuu tarbiyeynaya, anaana ka mas-uul ah awlaaddaada iyo carruurtaada hurdadooda, caafimaadkooda, nadaafadooda, dhammaan anaa ka mas-uulay tiri. laakiin haddaad doonaysid bay tiri inaan wax kuu baro, maadaama anugu mucallimad ahay, xag jaamacadeedna aan shahaadooyin badan ka haysto, luuqado badan iyo culum badan aan garanayo. haddaad doonaysid inaan wax kuu baro, lacagtii aan kuu sheegay waa inaad wax ku dartaa oo $100 ku dartaa. haddaad doonaysid inaan cuntada u kariyo oo aan jikada u galana, lacagtaa waa ku siyaadinaysaa $100, $900, taasoo ay ka gooni tahay adeegaygii iyo howlahaygii kale. haddaa intaa ku sii darayo inaan dharkooda u dhaqo, gaar ahaan ilmaha ugu yar dharkiisa aan u dhaqo, waa inaad lacagta ku dartaa $100. marka waxay noqonaysaa $1,000. carruurtaada hadduu ku jiro mid xanuun gooni ah leh oo si gooniya in loo ogaado ama loo maamulo u baahan, lacagtaa waxaad ku daraysaa $100 oo $1,100 ayay noqonaysaa. shaqada haddaad doonaysa inaan ku sii daro nadiifinta guriga, waa inaad lacagta ku dartaa ama qof kaloo guriga dhaqa oo nadiifiya aad keensataa. shuruuddaas ayay iyaduna la gashay ninkii. waxay kaloo ku sii dartay maalinta jumcada waa maalinta fasaxayga ah ee isbuuca aan ku leeyahay. xaq baana u leeyahay ilaa xaalad gooni ah oo daruura inay jirto mooyaane. ninkii waa ku khasban yahay oo waa danaynsan yahay shuruuddaas uu ku waafaqay. su-aasha meesha taalba waxay tahay oo qisadan ama arrintan yar aan oga jeednaa waxaa weeye, nin yahow ma og tahay xaaskaadu waxay hayso? ma ogta? ma fahantay nin yahow guurka iyo xaaska inuu ilaahay ku tilmaamay ballan aad iyo aad u adag, qiimaha xaaskana inuu sidaas ilaahay u sameeyey jalla jalaaluh oo ugu tilmaamay guurkeeda inuu yahay ballan aad u adag. sababtu waxaa weeye walaalayaal, xaaskaadu kaa qaadan mayso lacag markaa carruurtaada kuu tarbiyeynayso, gurigaada ka shaqaynayso, cuntada kuu karinayso, dharkaada iyo noloshaada ay ka fakarayso. 1 shilin ku weydiisan mayso. khidmada ay kuu qabanayso, carruurtaada khidmada ay u qabanayso, lacag kugu weydiisan mayso. shaqadaas uu shaqaalaha ugu yeertay ninkaas iyo waxay qabataa in kaloo ka badan, iyadoo raalli ku ah, nafteedu ay ku deggan tahay. imisay shaqo naga haysaa. markay dhimatay ninkaa maxaa ku soo fakaday? intaasoo mashaakil ayaa ku soo fakaday. markuu dalbaday inuu gabar kale ee haweenay kala guursado,
say shaqada u qabato waa ku diideen markuu raadsaday mid shaqaale ana lacagta iyo shuruuduhu intay la eg yihiin waad garanaysaan xaaskiisii hadday u noolaan lahayd dhibaatada noocaasa ma mareen nin yahuma dareenta marka dhibka ay kaa hayso xaaskaadu yaa qiimahay ku fadhida ma garatay hadda nin yahow markaad ku ciyaaraysid markaad iska furaysid markaad carruurtaada ku dayacaysid markaad dilaysid markaad xumaynaysid markaad ku ciyaaraysid qiimahay ku fadhida bal fiiri waxay kaa haysa eeg derbigay kaa haysa fiiri waxaan qisadan ama kelmadan yar u alifnay waxaa weeye saan u fahansiina raggeenna qiimaha xaaskiisa ay leedahay iyo waxay ka hayso iyo shaqada aadka u weyn ay hayso inuu garta la rabaa ku ixtiraamo markaas iyadoon ka doonayn lacag iyo shuruud bay u qabanaysaa iyadoo raallihii jacayl ku qabta keliya waxay kaa rabtaa inaad farxad qalbigeeda gelisid aanad ku tiraahdid waxaa tahay gabar yahay xaaskaygiya waxaa tahay kaydkayga quruxda badan iyo dhufayskayga awoodda badan ayaa tahay keliya intaa inaad ku tiraadaay kaa rabtaa una dholla caddaysid farxadna aad nolosheeda ku beertid rag badan waxaa leenahay ilaahay jalla jalaaluhu ka cabsada oo dumarkeenna ixsaanu sameeya shaqada noocaasay hayaane waxaasoo derbi ay kaa hayaan oo mushkiladee u naxariiso rabbina ooga baq xisaab baad dambaysee xaasaskiinna waxaad oola dhaqantaan sida aad jeceshihiin inay idinkula dhaqmaan gabdhihiinnu carruurtaada sida aad doonaysa inay kuula dhaqmaan ee aad u jeceshahay inay wanaajiyaan dhaqankaada wanaaji xaaskaada sidaad ula dhaqmaysid sida naftaada u jeceshahay in wanaag lagula dhaqmo xaaskaadana kula dhaqan gabadha adigaa dhashay sidaad u jeceshahay qaali kuula tahay si ka daran xaaskaada waa inay qaali kuula tahay qaado dardaarankii nebi maxamed oo ku siiyey calayhi salaatu wasalaam maalintii xajatulwadaac muxuu nebigaada ku yidhi calayhi salaatu wasalaam uusiikum binnisaa'i khayra waxaan idiin dardaarmayaabaa nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad rag tihiin inaad dumarka khayr kula dhaqantaan iyo wanaag khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahli ilaahay ka cabsada si noloshiinnu ay u noqoto mid wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay u tura oo qaata dardaaranka nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam rifqan bilqawaariir dardaarmada noocaasa markuu nebigu bixinaya calayhi salaatu wasalaam adduunkuu ka tegi rabaa noloshiisii wax yaraa ka harsan marka ilaahay uga cabsadu leeyahay dumarkiinna oo u ixsaan sameeya marka waad fahamtay xaaskaadu shaqada ay ku hayso inta ay baaxad la eg tahay waxaa keliya ay kaa rabto waxaa weeye farxad iyo mucaamalo wanaagsan inaad kula dhaqantid